weli waxaa socdaa dagaalka dhanka hawada ee u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil kaas oo muddadii 5 casho ahayd uu Sacuudi geystay khasaare ba'an oo naf iyo maalba leh. Maxamed Baasha Khalifa oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa warkaasi la socday. Maxamed halkee la kala maraya liibanow colaadda ka dhex oogan Israa'iil iyo Iiraan ayaa gashay maalintii afraad waxaana weli ay dhinacyadu isweydaarsanayaan duqeymo midka kale uu ku garaacayo. laba qarax oo waaweyn ayaa intayna soo gelin idaacadda daqiiqada ka hor waxaa laga maqlay bartamaha magaalada Tehraan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa warbaahinta dowladda Iiraan. weli dhinacyadu waxay isdhaafsanayaan duqeymo xoogan oo ku dhacaya magaalooyinka labada dhinac waa Iiraan iyo Israa'iil. milatariga Israa'iil liibana waxay sheegeen in Iiraan ay 30 gantaal ay ku garaacday Israa'iil weerarkeedii subaxnimadii hore ee saaka. inta badan gantaalada waxa ay sheegeen milatariga Israa'iil in la qabtay laakiin qaar ayaa saameyn yeeshay ayuu yidhi afhayeenka IDF waa ciidamada Israa'iil. waxaa mashquulsan kooxaha gurmadka labada dhinac ee Israa'iil iyo Iiraan oo la arkayo iyagoo meelaha duqeymuhu ay haleeleen ku howlan bal halkaas inay ka samata bixiyaan dad wax ku yeeloobay ama dhaawacyo ay ka helaan. waxa ay sheegtay laanqeyrta cas ee Iiraan in ay ku mashquulsan tahay sidii ay kooxaha gargaarku halka u gaari lahaayeen goobaha duqeymaha hawada ee Israa'iil ay haleeleen bartamaha caasimadda Iiraan. milatariga Israa'iil waxa kaloo ay liibano sheegeen inay dileen taliye sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan waa ninka lagu magacaabo Cali Shadmani kaas oo ah abaanduulaha ciidamada Iiraan kaasoo goor dhoweyd ama maalmo ka hor qabtay xilkaasi markii la dilay generaalkii xilkaasi horey u hayay oo la yidhaahdo Golomani Rashiid. marka way xaqiijiyeen Israa'iil dilka generaalkaasi laakiin ma jirto war degdega oo ku saabsan geerida Shadmani oo warbaahinta Iiraan ay baahisay. waxaa muuqda marka in xaaladdu ay weli cirka ku shareeran tahay oo dhinacyadu weli ay dagaalku u dhexeeya uu sii xoogeysanayo oo weeraro ay labada dhinac isdhaafsanayaan liiban. ma jiraan ilaa haddeertaan waxa tirakooba lagu sameeyey dadka labada dhinac ka dhintay iyo hantida burburtay iyo waxyaabaha khasaaraha soo kala gaaray labada dal. liibanow khasaaraha dhaawacyada marka aynu egnay dhimashada ilaa hadda wasaaradda caafimaadka ee Israa'iil waxa ay sheegtay in 154 qof loo qaaday cisbitaalada kadib markii ay wax ku yeeloobeen duqeymaha Iiraan halkaasi ay ka geysanayso. waxaan hadda helnay war cusub oo ku saabsan wasaaradda caafimaadka Israa'iil oo sheegaya in dadkaasi tiradoodu ay tahay 154 ruux cisbitaalada loo qaaday kuwaasoo ku waxyeeloobay duqeyntii ugu dambeysay ee la xalay ilaa saaka Iiraan halkaasi ay ku qaaday. dadkaasi 4 ka mid ah waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin xaalad dhexdhexaada 130 ka mid ah 15 qof waxaa la sheegay inay xaaladooda la qiimeynayo oo ay xaaladooda ay tahay bay yiraahdeen mid qiimeyn ku socota. dhanka Iiraan haddii aynu eegnana wasaaradda caafimaadka Iiraan waxay sheegtay in ugu yaraan 224 qof ay ku dhinteen in ka badan 1200 qofna ay ku dhaawacmeen duqeymaha dhanka cirka ee Israa'iil ay ku qaaday dhinaca Iiraan ilaa iyo Jimcihii. laakiin tiro ka badan taas ayaa waxaa warinaya ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo sheegaya in tiradu intaasi ay ka badnaan karayso. dhanka kale ma jiraan wax waanwaana ama badadaalo loogu kala dab qaadayo labada dhinac si dagaalka loo joojiyo. liibanow wadamada caalamku waxa inta badan ay cadaadis saarayaan labada dhinac gaar ahaan Iiraan iyo Israa'iil ay doonayaan in balxiisada la qaboojiyo. dalalka warshadaha ku horumaray ee G7 la yiraahdo oo shir ku leh wadanka Canada madaxdu waxay soo saareen bayaan ay ku booriyeen dejinta colaadda laakiin waxay isku raaceen in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. waxa kale ay sheegeen inaysan suurtagal ahayn in Iiraan ay yeelato hubka waxgumaada ee nuclearka. madaxweyne Trump oo ka hadlayay xiisadda ka oogan bariga dhexe ee Iiraan iyo Israa'iil isagoo oo la hadlayay wariyaasha la socda diyaaradda la yiraahdo Air Force One ee madaxweynaha Mareykanka qaada halkaas uu kula hadlay waxa uu sheegay in uu doonayo ay raadinayaan xabad joojin balse waxa uu sheegay in ay sidoo kale doonayaan in la dhaafo xabad joojin oo uu dhammaadna la gaaro. madaxweynuhu waxa uu yidhi waxaan doonaynaa dhammaad dhab ah laakiin ma doonayno xabad joojin ee waxaan doonaynaa dhammaad. marka la eego hadallada Trumpna waxay u muuqdaan
in dagaalku uu sii cakirmayo madaxweynaha maraykanka iyo dowladda maraykanka oo saaxiib iyo xulufo dhowlaha israa'iilna weli xaaladda aysan kala caddaynin dhanka teheraan haddii aynu eegno liibanow wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabaas araaji ayaa waxa uu khadka telefoonka kula xidhiiray dhigiisa 3 waddan oo yurub ah waxa uu uga warramay xaaladda waxa uu ku baaqay in yurub ay carmaarayso waxa uu ugu yeeray gardarrada qaawan ee israa'iil waxa uu sheegay in diblomaasiyaddu ay sii daciifayso loona baahan yahay in door weyn la qaato diblomaasiga sare ee ka tirsan midowda yurub haweeneyda la yidhaahdo kaja kalas waxa ay sheegtay iyaduna in haddii maraykanku uu ku lug yeesho colaadda israa'iil iyo iiraan ay row ahaantii taasi gobolka ku jiidi doonto bay tiri khilaaf ballaaran taasina aysan cidnadani ugu jirin laakiin waxay sheegtay inay xaaladda sii eegi doonaan marka waxay u muuqataa in wadamada caalamku hadda ay ku foogan yihiin oo isha ku hayaan waxaa ka dhex dhacaya israa'iil iyo iiraan liban aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed baashe khaliifo oo nala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ee dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo iiraan oo khasaaro badan ka dhashay islamarkaasina aan si muuqan wax calaamado muujinaya in la soo gebagabaynayo haddaba weerarada dhanka cirka ah ee ay iswadaarsanayaan iiraan iyo israa'iil ayaa galay maalintii shanaad oo xiriir ah wararka ay b b c du helaysa ayaa sheegaya in dadka ku waxyoolooba duqaymahaasi israa'iil ay soo qaaday ay ku jiraan dad soomaaliya haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda soomaalida dagaalku ku habsaday halkaas ku qabsaday waxaan qadka telefoonka ku waraysanay axmed cabdi oo degan magaalada quum ee bartamaha dalkaasi ku taal wuxuuna u warramay nimcaan cismaan axmed maxamuud cabdi baa la yidhahdaa axmedow xaggeed igala hadlaysaa oo hadda joogtaa waxaan joogaa magaalada qum magaalada iiraan waa gartay taqriiban waxay ku taallaa sentraalka waddankay ku taallaa waxay u dhaxaysaa magaalada caasimadda ee teheraan iyo magaalada isfahaan bay u dhaxaysaa goormaad tagtay markaa halkaasi anu waddanka waa ku noolahay muddo ilaa laga soo bilaabo 2013 inta u dhaxaysa ilaa eega maxaad ka qabataa markaa axmedow halkaa anu jaamacad baan ka bartay manajmentiga ah maamulka jaamacad kaloo waxaan ka bartay xagga dhaqaalaha ah oo haddaba aan wax yar iga harsan yahay marka taqriiban waan isku noolahay waddanka ganacsiya iyo waxaasna waan ku leenahay waan deganahay waa gartay adiga keliya miyaad degan mise qoyskuna waa kula socdaan qoys waxaa ka waddankiiba jiraan hadda laakiin nin baa jooga iiga warran magaalada hadda joogta ee qum xaaladdeedu waa sidee qumta gudaheeda waxba kama dhicin laakiin bannaankeeda meelaha buuralayda iyo waxba soo gagaadhay baa lagu sheegayaa marka shalay waxaan joogay caasimadda xalay baan soo galay marka caasimadda inta badan way xidhnayd dadkuna waddooyinka sidii ay zaxmadda u ahaan jirtay ma ahayn tareennada oo kale dad yar baa saaraa waagii hore marka aad u fiiriso aad bay magaalada u buuxi jirtay zaxmad weyn u ahaan jirtay marka waa laga dareemayay xagga caasimadda waa gartay laakiin halkan aan joogo anigu hadda dareen badan hadda kama jiro ilaa marka laga reebo dee in magaalada atraafteeda lagu sheegayo inay waxyaalaha kula dhaceen qarxiyo waxaan u fahmay inaad xalay teheraan ka soo baxday oo caasimadda ah magaalada maxaad uga soo baxday magaalada cabsi baa ka jirtay markii horena marka waan gaadhay oo dan baan hawl baa iga xidhnayd oo shalay subaxdii baan tegey hawlahayga qaarkood weegiiba 2 jeer 3 jeer waan tagaa sida caasimadda marka aduu dadku waa soo yaacayeen oo ay ka soo baxayeen inta badan marka arrimaha jira dartood baa marka aan u soo noqono waxaan u soo guuray axmedow bal muuqaal ama sawir guud ka bixi xaaladdu sida ay tahay magaalada teheraan ee aad ka timid iyo midda qum ee aad hadda joogto niyahow waddanka dadku inta badan waa dad dagaalada yaqaano oo ma cabsi badno sida waddamada qaarkood ka dhacda marka uu wax dhaco u kala yaaco magaalooyinka qaarkood iyada oo qaraxyo ka dhacayba sida isfahaan oo kale iyo ayna dadku dambaga lahayn hase ahaatee dee isbeddel waa laga dareemayaa sidii uu ahaan jiray waddanku caasimadoo kale haddaad soo qaato kolley waan arkaya aniga laftaydu marka aan sii gelayey oo kale iyo aroortii meelaha uura ay ka kacday oo kale oo aan u malayn inay kaalin shidaal ahayd ma aqaano marka waa jiray kolley isbeddel caasimadda waa isbeddel waa jiray axmedow inta ogaalkaaga ah meelaha ay sheegtay in duqaymo lala beegsaday oo weeraradu ay ka dhacayaan ma goobo dad rayida degan yihiinba mise waa xarumo dowladeed meelaha ay ka dhaceen inta badan aan ka warqabo xarumo dad shacabi ay degan yihiin ayaa u badan yihiin siiba galbeedka magaalada waddanka iyo waqooyi galbeed sida magaalada zanjaan iyo tabriisiyo intuu hadda wax soo gaadhay dad shacaba dhismayaal ay degan yihiin iyo waddooyinka iyo waxaasay u badan yihiin sida magaalada la yidhahdo kirmanshaah dhakhaatiir dad shacaba lagu daaweynayo ayuu soo gaadhay waxyaalo badan soo gaadhay shalay
iga waran Soomaali intee leeg baad ku joogtaan inta aad ka warqabto waddankaasi Soomaali marka la isku daro dadka jooga dadka shaqeeya oo business-ya waxa u jooga iyo dadka loo waxbarasho u jooga ilaa 6 qof meelahaas kama badna marka la isku geeyo hadda 6 qof 2 qof dad Soomaali oo waxyeello soo gaadhay miyaa jirta yar waxaa jira caasimad kuliyadda caafimaadka Tehran barta firir ba madaxa iyo dhabar ka soo yargaaray darar meel uu ka dhacay qarax uu ka yaracay waa sidee marka hadda xaaladiis way saalantahay xaaladiis way fududahay marka waxaa la sheegay hadda inuu dhaxal ku sii jiro oo leeyahay xagga Azerbaijan uu ka cayaa uu dhaxal ku sii jira la sheegay anu lama hadale maxaa idin qorshe ah marka dadkiina Soomaalida ah ee halkaas jooga hadda ee muddana ku noolaa leeyahay waxaan oo qorshe ah kulli waan tashanaynaa oo maanta yar soo imanayna galabtii iyo hadda qaar baa soo caasimada ka soo baxay oo xaggayga u soo socda magaalada aan joogo ee qum marka kulli waan tashanaynaa oo ma garanaysaa inaan sii joogno waddanka iyo inaan ma garanaysaa maxaanino oo ka baxno waxbaan kulli aan qorsheynaynaa walaaca idinku weynee marka ilaa hadda qabtaan muxuu yahay walaacu waxa weeyaan inuu dagaalku sii balaadho ma garanaysaa ay sii waxaystaato oo ma garanaysaa meesha godoon aan ku gallo ayaan walaac ka qabnaa aba uu waxna soo gaadhaba